خضن أحمد يوسف أنا سكين برو وحى كل لطي مجال هرجيسة وحى كبر بارتي مجال هرجيسة هير كيدي وحبرشة هسه لحى سرة يلا جامعة له وحى كقاطي مجال هرجيسة إمك وحى كترت جامعة هرجيسة أو أي وضع خضن واقف نافع لكن أنا عقلي نافع هنا شركة نافعة. لقولوا لي هي حلقان كروا دار الامتحان دبعتها الأبوري قف عقاب إياك الحد كسودة مستنية هي بدبعتها دومتها runtii way adag tahay waad suureyn kartaa adigu qof naafa oo lugaha waliba ka naafa oo socodkii uu ku awood daran yahay oo awood u lahayn inuu socdo amba waan socdaan alxamdulillah laakiin socod dheer aan dhig karin oo ilaa jaamacadii amba basaska uu kala gooshi karo qadan waxaad sheegtay dad lixdood ilaa xad qaba inay naafada joogaan waxaan u maleynayaa in looga maarin waayo shaqada ay hayaan Soomaa maya ma dhacayso walaaltaa loogama maarin waayin sababtoo ah waxa jira dad badan oo naafaaga jaamiciina jaamacada dhameeyay qaar laga yaabay inay master sitaan degree sitaan loogama maarin waayin waxa weeyaan dad iska adigu si afduuban ku soo galay dalada inaanay dadka yasin inay dhiiri galiyaan inay qofka naafada meel ku arkaan caawiyaan inay jaranjarooyinkan meel kasta qof naafi masaajidadii dhakhtaradii waxbarashadii meel kasta oo istiraado wax ka qabso meelihii cosmetigyada ahaayee wax ka soo iibsanay meel kasta waa jaranjaro hudheeladii meel kasta waa jaranjaro bulshooyinta waxaan kula talin lahaa inay qayb bulshada kamid ay tahay qayb naafa inay u sameeyaan raamiskii ay dadku ka gelilayeen imika waxaad ku jirtaa jaamacadii oo qof muddo kara oo kaalin gala oo mustaqbal leh oo higsi leh oo intaas oo dhan waxbarashada soo wadiyay baa tahay haddii aynu dib u yar meelcsanaan badib yar noqono dhalaannimadaadii amba caruurnimadaadii waqtiyadii dugsiga hoose dhexe aad soo bilaabaysaan baad ku jirtay caqabado nooceeya baa kula kulmaysay soo gudubtay